su-aashan inay dad badan isweydiiyaan laga yaabaa waay Soomaaliya ugu soo batay kansarka waliba maaragta hadda social media aad uga aragnaa isbitaalada iyo dadka iyo darashkiisa caafimaad ka shaqeeya wax badan ama maqlaysaa cases kansarka aad u soo bateen waay maxabadiyay waliba markaa sheekaysanayna dad aad u faan badanaanahay anaga cunto organiga cunaa hawo nadiif ah haysana vitamin D natural ah haysana ma ka faa'iideysanaa hawada oo Ilaahay ku siiyay mise waa sii wasaqeynaa cunto oo organic ma cunaa mise waa been waxaas maxaa ka jiro waxa rabaa inaan qalin iyo book soo qaadatid qof kasta ma aragtay xisaabi gurigaaga bishii wixii soo galo iyo saa ma aragtay climate cimilada oo wasaqaysid intaas kaliya xisaabi kadibna waxa ka fikirtaa xanuunkan way u soo batay waa ogaanaysaa jawaabta number 1 hada ku bilaawno cuntooyinka soo adeeganayno gurigaaga bishi meeqa u soo adeegtaa sonkor kiilada iyo saliidaha cadcad sa ognahay sonkorta ma aragtay waxa la dhahaa waa waxa aad u qoodiyo cancer cellska kansarka horta waxa waaye waa cells ama unugyo si abnormal ah isku qaybiye oo degdeg ah sonkorta marka sida qamiiris camal u tahay marka qamiirka wax ku shibtay aad u korinaya unugyada kansarka hadii qofku uu jirkiisa ku jiro number 2 saliidaha cadcad waliba aad ka u isticmaal waxay ka samaysan tahay oo kale oo maxalay galeeda saliida soyda waa la isticmaalaa saliidaha maaragtay canola saliida badan waxaa jira maaragtay oo caag lagu soo shubay aad ogeyn waxa ku jira caagaas trans fatka saliidaha waa GMO caafimaadkana ma u fiicno waliba dabka inta saartid oo wax walba ku dubtid marka qaarkood bariiska marka lagu soo dhigo maqaayadaha gacantaada saas marka dhahdid way ka di'een saliidaas oo waxyaabaha ay jirkaaga ku sababi karto hadii badsatid caabuqa ku sameynaysaa jirkaaga mararka qaarkoodna waxa la dhahaa waxay qarisaa ee dabool ku sameysaa unugyada kansarka in uu difaacaga jirka oo react gareen oo dareemin oo dabooleen saliidahaas aad u halis badan ayadana waa ina kala barataa waxa gurigaaga soo galaayo waxyaabaha qashinka marka laga soo hadlo mid ugu badan waxay tahay maanta qashinka horta derisku way isku faanaanba irdaha waxa plastic dhooban waayaaba kadibna waxay ku dhahayaan caanaha arag way fiican yihiin hal cabo magaalada joogo plastigaas ma aragtay iyo qashinkaas iyo waxa soo dhan xoolaha iyo nature dib ugu noqonaa nature-kana waa circle adii dib ugu soo noqonaa plastigaas waliba maanta bacaal ugu shubaa caanaha bacda ku wataan caano kulula caag ku jiro ala wataa waxa soo dhan ogo plastic adduunka laga hormarooya bacay waa la qaariyay Starbucks meelaha hadii aragtiin waa aragtay plastic moor waa la joojinaya anagana plastic uu ku sii batay qashinka ma aragtay adduunka industry country marka laga hadlayo waxa la dhahaa warshadiya ku soo batay baabuurta badan kan kale laakiin anaga maxaa ugu badan qashinka ma aragtay intii lagu guba meel fog magaalada malageeyo waliba xaafadaha qaar ku dadka masaakiinta degan yihiin Ilaahay u naxariisto waxa magaalada ma aragtay kiimiko iyo daawooyinka iyo maxalay dadka qaar ku chemotherapy loo sameeyo kansarka qabo waxa soo dhan waxa lagu gubaa plastic iyo everything oo dil rabo hub ku jiro waxa lagu gubaa dad masaakiin xaafada ay degan yihiin dawladda waxaas wax ma ka qabato laakiin hadi maxaa naftaada hadaa difaacan weysid 5 sano kadib Ilaahay ku naxariisto oo qeycas kugu baxaayo waxyaabahan banaanka ka imaanaya wadanka oo hada aad ugu soo batay gasacadaha ku jiro caanahan ma aragtay waqtiga dheer oo laayo waxa waaye wax oo la bacramiye businesski maanta Soomaaliya uu ka jira laakiin anaga dad waxana hurdada ma kacsanin oo waxa afkaaga gelinaysid waxa cunaysid waxa gurigaaga soo gelinaysid waxa ilmaha ka siinaysid